Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta u ambabaxay safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii xilka ra'iisul wasaarnimo ee dalka loo magacaabay 23kii bishii February. Safarkan ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu ambabaxay magaalada Doha ee dalka Qatar halkaasi oo la soo warinayo inuu shir kaga qayb galayo. Xasan Cali Khayre ayaa safarkiisa waxa ku heliyay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya oo u raacay dalka Qatar. ahmiyadda safarka ra'iisul wasaaraha ayaa ku saabsan ka qaybgalka shir lagu qabanayo magaalada Doha. Shirkaasi oo diiradda lagu saari doono arrimaha ku aadan dhaqaalaha, maalgashiga, amniga iyo xiriirka wadamada Bariga Dhexe. Sidoo kale waxaa ka qayb galaya barayaal sarsare oo wax ka dhiga jaamacadaha ugu waaweyn caalamka, waxaana ay ka jeedin doonaan hadallo la xiriira xasilinta siyaasadda caalamka. safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta ugu ambabaxay magaalada Doha dalka Qatar ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta uu dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka soo laabtay magaalada London ee dalka Britain halkaas oo kaga soo qayb galay shirkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ee dawladda Britain ay martigelisay.